Bannaanbax looga soo horjeedo xubnaha iyo saami qaybsigii lagu qaybiyay golaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasiir dowlayaasha maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle waxaana bannaanbaxaasi ka qayb qaatay qaybo ka mid ah xildhibaanada maamulka Hirshabelle odayaal dhaqameed iyo salaadiin kuwaasi oo sheegay inay ka soo horjeedaan misana aan u cuntumin tirada ay ka heleen saami qaybsigii lagu sameeyay wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha maamulka Hirshabelle. war haddii aan niraahdo beesha kaboolo injineer weyne meel uu joogo ka xun yahay talaabadii markaasi shalay uu qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusuble isla markaasi uu hareer marka ama xadgudub ku sameeyay guud ahaan beelaha Jarweyne hal xildhibaan waa la sii waayay beesha eylow hal xildhibaan waa la sii waayay hal wasiir waa la sii waayay beesha Shabeelle sidoo kale hal wasiir waa la sii waayay lixda beelood shiidlo waxaa la siiyay hal wasiir iyo hal ku xigeen madaxweynaha wuxuu sameeyay wax qurxan ma aha wax raal lagu qala ma aha waxaan ku qaraxsanahay ma aha waxaan qaadanayna ma aha waxaan yeelayna ma aha arrinkaasi arrin qaldan ayuu noqday boqolkiiba 40 ma aha waliba ayuu wax ka bedelo ayaan faraynaa haddana beesha jireen weynay inta kale dadkii aan na soo doortay ee aan mas'uuliyadda u soo qaadnay anigoo ah xildhibaan wehel mahdi hilowle xildhibaan jambi waxaan u sheegayaa wax aan nagala tastay iyo wax aan ku ognahay inaysan jirin waxa uu sameeyey madaxweynaha Hirshabelle waana ka soo horjeednaa adduunka dhan waxaan u sheegaynaa waxaas in wax jira aysan ahayn wax badan wuxuu buriyay horta qodobadii dastuurka ayuu meel kaga dhacay laakiin anaga haddaan nahay xildhibaanadii Hirshabelle waxaan tusinaynaa awoodda aan leenahay madaxweynaha dadka soo doortay waa anaga dadka madax ka dhigi waa anaga waxaan tusaynaa inaan shacabka ku celino insha Allah inay lahaayeen 2007 waxa ka soo baxay aflagaada aad u xun oo uu leeyahay Jarweyne muslim ma aha Soomaali ma aha madaxweynuhu hadda koor asigoo wasiirkii waxbarashada ah ayuu sameeyay in jareer uu meel kaga waa taa hor u sheegteen waa ku celcelinayna haddana meel ka dhaca lagu sameeynayo ama liidada la liidayo jareer weyne ma yeeleyno Cabdullaahi Cusuble saacadaan ka bilaawatay jareer kalsoonigii waa kala noqday waxa uu yahayna ma jirto mana matalaan mas'uul umaha jareerna saddex xibnood kuma qanacsana jareer iyo habiya gobolka Hiiraan Shabeelle waxa loo tagay kontonkana binta jiilku waan ku leenahay 25 oo jaleecay 25 jareer 25 hadaan wareerno madax shub ku bixiyo maartay cid rabaasi waxaan nahay xurana waxaan nahay dad Ilaahay awoodiisii dad leh difaac leh dhaqaale leh wax naga maqan jirin wallahi ababa ku rabno maalinkum rabno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane farmaajo waxaan ku sheegaynaa inuu Cali Cabdullaahi Cusuble oo jareer matala kar mas'uulna ka cid macaarinayni laakiin dawladda Cali Cabdullaahi waa qaadacnay jareer kuma jiro haddii baarlamaan nahay haddii siyaasiyan nahay haddii urur habeen nahay haddii dhalinyarada haddii military nahay Cali Cabdullaahi dawladda waa qaadacnay ma rabni Anti Ahmed Maclo Bulsho TV Jowhar.